بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. وولالكن أبو طلحة أو إذن شعل إلهي درادي إذن شعل دون ينا إنو هوذا إذن صومريو فرين دق فرين تاسي وحي معنى هذا وحي حنبار سنتهاي أما وحي دارن تهاي walaalkayga muslimka ahee Soomaaliyeedo noqo muslim Soomaali ah oo xadaarad leh, muslim u dhaga fudud ama u dhaga nugul dhakhaatiirtu fariimaha ay soo marin hayaan meelaha la soo mariyo, fariimahaas oo ku aadan cudurkan dilaaga ah ee gaal iyo muslim yar iyo weyn midna aan ka tagin arrimaha ku aadan. dhaqan la yaab labaanu leenahay inaanu is aruursanno, meelahana istaataagno, fadhiyadana iskugu imaanno, aanan u dhagan nuglaanin dhakhaatiirta iyo duwalka iyo waxa danteenna aanan u dhagan nuglaanin. taasi waxaa ka dhalan kara dhimasho badan. taasi waxaa ka dhalan kara TV-yada dawlad walba inay Soomaalida taargad ay ka dhigtaan oo ay yiraahdaan ayaga cudurka keena waa dad baadiye ka yimid oo aan nolosha iyo xadaarada aan waxba ka garanaynin. taasi kama hor imaanaysa tawakkalka cala Allah, at-tawakkul cala Allah, waayo inaad asbaabta qaadato waa wax aad iyo aad muhiim u ah. walaalayaal, waxaan maqlaynaa marar badan Soomaalidu ayadoo leeyahay war guryihiina ku ekaada, war ha u soo bixin ilaa xaaje adag ma ahane, ayagoo war ha isa salaamina, cudurkani waa cudur khatar ah, ayaa waxaad arkaysaa cagsigeedii oo la samaynayo. walaalayaalow, arrintaasi aan aad ugu dhagan nuglaano oo aanu dad nolosha fahamsan aanu noqonno oo naftayadana yeenan halaagin, dadka kalena yeenan halaag u soo jeedin, muslimnimadana yaanan dhibaato u keenin iyo Soomaalinimada. risaaladaas in la isgaarsiiyo aad iyo aad baan u codsan, waa risaalo aad iyo aad muhiim ah. uxibukum fillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.